ما jiraan maalmo ilaahay uu uga jacayl badan yahay amalka wanaagsan ee dhexdooda la sameeyo maalmahan tobanka ah macnaha maalmuhu ilaahay ugu jacayl badan yahay amal iyo cibaado loogu dhawaado waa amalka tobanka maalmood dhexdooda la sameeyo قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله وحيدادين يا رسول الله جهادنا ميانو كفضل بدني قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وحاول جهادنا كما فضل بدنا عمل كمال مها دحدود الله سمايه نين مويانه إلهي درتي ألبحي نفتيسي حوليسيبا اون waxba kala soo noqon nafiya maaltoona kaasum ba alla ilaahay amalkiisu ka mudan yahay maalmaha wax la sameeyo wax kale oo ka mudani ma jiro waxa kale oo nabi maxamed yiri alayhi afdalu salati wassalaam kama fi sahih al-jami' min hadith jabir afdalu ayyam ad-dunya ayyam al-ashr maalmaha adduunyada kuwa ugu mudan ee ugu fadliga badani وطبعاً كان مالمود إلا علماء قاركود أي راهدين حتى 10 الأواخر من رمضان طبعاً كان أكمدان علماء قارنا أي كل ميين لبضا فضل سيدا شيخ الإسلام أو كله حق مالمها مركا لغا إيغانا ومالمها دي الحجاء وقمدان سنة كوردان حق هبين ندا مركا لغا إيغانا طبعاً كهبين رمضان وقدام بيا وقفضل بدن هبين ندا سنة كوردان ويا طبعاً كدام بير رمضان ليلة القدر باكو جرا طبعاً كدي الحجانا عرفاكو جرتا كي لا يراهدبا waa maalmo mudan oo aad iyo aad u fadli badan walaalayaal waxyaabaha inuu tobanka maalmood ku camirayno soonka kamid ah ninkii soomi kara ha soomo sadaqada kamid ah ninkii xoolihiisa wax ka bixin kara ha ka bixiyo istighfaarta iyo toobadkeenka kamid ah quraan akhriska kamid ah waxa weeyaan qofku acmaasha kala duwan ee soom iyo salaad iyo sadaqo iyo noocyo kala bale maalmaha ha ku tuntunsado ha ku camiro walaalayaal maalmaha waa la moogan yahay oo sida tobanka dambe ramadaan looguma baraarugsana laakiin waxaad ogaataa nabi maxamed inuu ku tilmaamay maalmaha ugu mudan adduunyada sanadka oo dhan marka la isku geeyo maaha maalmo fudud ee ha fudaydsan walaalayaal هذه الأيام وإن قفكوا سي ديار قروبه وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في